dagaal culus oo mar kale ka qarxay magaalada Laascaanood ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow garaysid sidoo kale tan muuqaalkan aad like garayso kaba sii wanaagsan haddii aad u share garay saaxiib adigoo kale waad ku mahadsantahay la socodkaada warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC Khaatumo xalay ka dhacay dhanka bari ee duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu xoogiisa ka socdo aagga Buraha Hodan iyo Sayidka oo hoostaga Laascaanood ay muddo ku dagaalamayeen labada dhinac wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu ka dhashay kadib weerar ay ciidanka Somaliland ku soo qaadeen fariisin ay leeyihiin kuwa SSC Khaatumo waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka oo ilaa haatan ka socdo bariga magaalada Laascaanood militariga Somaliland ee duulaanka soo qaaday ayaa iska caabin adag kala kulmay dhanka ciidamada deegaanka ee SSC ee haatan ku sugan jiidda hore ee dagaalka xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana la soo warinayaa in labada dhinac ay iswadaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale madaafiic hoogan ayaa ku dhacday aagga lagu dagaalamayo taasoo uga sii daraysa xaaladda adag ee ka taagan halkaasi qaar ka mid dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalka uu saameyn ku yeeshay isla markaana ay maqlayaan daryanka hubka culus ma cadda qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkan mana jiro wax hadal oo ka soo baxay labada dhinac ee ku diriraya halkaasi muddooyinkii u dambeeyay xaaladda Laascaanood ayaa ahayd mid degan inkastoo mas'uuliyiinta labada dhinac ay hanjabaadyo isku marinayeen warbaahinta weerarkan cusub ayaa ku soo aadayo iyadoo bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda adag ee ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qaramada midoobay ayaa ku baaqday in Somaliland ay ciidamada ka qaado aagga Laascaanood sidoo kalena ay isxakameeyaan ciidanka SSC si gargaar loo gaarsiiyo dadka ay waxyeelada soo gaartay